saddex iyo tobankii Noofembar ayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland wax ka dhacday doorasho xor iyo xalaal ah oo one man one vote ah. Haddaba Komishanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ku dhawaaqay ciddii ku guuleysatay doorashada saddexdii xisbi oo kala ahaa Ucud iyo Wadani iyo Kulmiye. Doorashada ayaa waxa ku guuleystay musharaxa xisbiga Kulmiye Mudane Muuse Biixi Cabdi. dadweynaha ku dhaqan magaalada London ayaa salaan iyo bogaadan waxay u direen musharaxii xisbiga Kulmiye ee ku guuleystay doorashadii 13 Noofembar ka dhacday Jamhuuriyadda Soomaaliland. hadaladoodina waxa kamid ah sida tan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan bulshada reer Soomaaliland meel kasta ay joogaanba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. inta kadib waxaan maanta halkan hambalyo iyo bogaadin iyo ducada hawada u marinayaa madaxweynaha shanaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland yeelatay waa madaxweynihii saddexaad ee si toos ah ay u soo doortaan shacabku mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaan leeyahay guuleyso, waxaan leeyahay hambalyo, waxaan leeyahay ilaahay xilka ha kugu asturo hana kugu guuleeyo noqokii maxaa la yiraahdaa bulshada reer Soomaaliland iyo geyga reer Soomaalilandba gaarsiyo horumar iyo baraare iyo barwaaqo arrinka ugu weyn ee ay raadinayaanna ilaahay ku guuleeyo ee ah ictiraafka. wad salaamantii dhamaantii. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Maxamuud Xasan Cabdi anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda guud ee cariga dalka Ingiriiska. waxaan runtii aad ugu hambalyeynaya guddiga doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan maxaan idhaahdaa shacab weynaha reer Soomaaliland iyo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland saddexda xisbi qaran maxaan ku idhaahdaa Soomaaliland dhammaantoodba waan u hambalyeynaya. runtii waa hambalyo aad baan diraya anigoo ku faraxsan doorashada quruxda badan ee maanta ka dhacday cariga dalka maxaan ku idhaahdaa Soomaaliland oo runtii doorasho aad u qurux badan aan hore uga dhicin maxaan ku idhaahdaa wadamada Afrika ama wadamada aynu jaarka nahay Soomaaliland. marka waxaan leeyahay hambalyo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii maanta ku guuleystay doorashadii ka dhacday Soomaaliland 13 Noofembar. hambalyo baan leeyahay. waxaan leeyahay dhammaan waxaan ku dhahdaa xisbiyada mucaaradka waa inay hambalyeeyaan oo ay taageeraan oo ay ilaashadaan qarannimada Soomaaliland shacab weynaha meel uga soo wada jeestaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ugu horeyn waxaan hambalyo iyo bogaadin balaaran u dirayaa shacbiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan. waxaan ugu hambalyeynayaa taariikhda cusub ee aynu maanta Soomaaliland gaadhay madaxweynaha cusub ee maanta la doortay maanta guddida komishanka doorashooyinka qaranku ay ku dhawaaqeen mudane Muuse Biixi Cabdi mudane Muuse Biixi Cabdi inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka u fududeeyo. runtii Soomaaliland guul bay u tahay, xisbiga Kulmiye guul bay u tahay, xisbiyada Soomaaliland guul bay u tahay in Muuse Biixi Cabdi maanta madaxweynaha dalka hogaamin doona 5 sanadoodna uu noqdo. marka waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka ku fududeeyo qarankana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ictiraaf ku simo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdiraxmaan Shaqale TV-ga qaranka Soomaaliland London.